Goluhu inta badan waxaa la sheegaa inay u baahan yihiin garab ama ilaalo gaar ah, taasoo ay ka helayaan isla aararka ay ku tiirsan yihiin ama ay xulafadooda yihiin. Hataa waxay ka welwelsan yihiin inuu mid kale ku soo baxo ama ubadka ka laayo. Kay rabaan ama kay la jiraan waxay tusaan kalgacalka halkii ugu dambeysay ama raalli ahaanshaha halkii ugu dambeysay. Waxayna sidoo kale garab u siiyaan ama ay kala difaacaan soo galootiga iyo kuwa raba inay ka dilaan ubadka iyo kuway rabin ama kuway raalli ka ahayn. Waxay ula dagaalamaan si cadowtinimo leh oo hadda waxay isku gaabinayaan mid soo maraya goob agtooda ah. Waxay ka fogeynayaan ama ay kala dagaalamayaan ubadka inuu ka taaban. Dagaal ayay ku qaaday isagu warba uma hayaba. Waa iska ordaya oo waa ka fogaanaya. Hadafkiisu maaha inuu la dagaalamo ama uu ubadka laayo. Waa iskaga tegay. Halka aarku isagu u baahan yahay garab ama wehel kaasoo ah aar kale oo ay ku xidhan tahay noolaashadiisa iyo difaacidda dhulkiisa. Garabkaas hadduu waayo waxa u suurtagalaya ama fududaanaya cadowgu inuu dilo ama inuu ka qaato goobaha uu ku nool yahay. Sidoo kale in laga qaato goolaha iyo ubadka ama cagab-ururada uu ku soo biiriyay isla koonkani. Gooluhu maaha kuwo waaraya. Haddii laga awood bato waa laga qaadan karayaa oo naftiisu halis ayay ku jirtaa. Sidaa darteed waa inuu helaa coalition ama xulufo cusub taas oo ay isku tiiriyaan dhabarka ka difaaco isagana laga difaaco waxyaabaha dhibta u keenaya. Waa dameerley waa isku dantii la sheegaya. Haddaba baahida uu u qabo goosha waxaa ka baahi badan goobta uu qabo inuu helo aar kale kaas oo ay isla difaacdaan isla dhulkani. Ha noqdo mid isaga la dhashay oo ay ka soo wada jeedaan isla family kaliya ama mid ay isku fahmaan geedi socodka nololeed habka ay u dhaqmayaan ama isla fahmaan inay nolosha wada difaacdaan. Ugu dambeyn waad ku mahadsantahay ku xidhnaashadaadii la joogaaga. Haddaad hore noola joogtay ama aad ka mid tahay asxaabtii Facebook hore Axmed Xirsi abaal ayaan kaaga haynaa soo dhawo mar labaad.